maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino aryaada way maqlaysiinaan umaleeya suugaan farmaajaysan iyo gabayo qayraysan oo sayid madoobaysan oo macallin xaafaysan oo wada gareenaysan oo qayb ka daniyeysan muuse handaraabna u tirsho weliba laanaysan oo maamul gobolaysan baan soo bandhigayaaye idhegaysta saaxiibayaal waan idiin digay warkan waa waalaya waxbaa ka dhegaysanina ii keen asiga warnimada waxaa la yidhi dhibaatada taagan iyo xumaanta dadkaa tabcaye haddaan toosnaan lahayn xaqa u taagnaan lahayn rabbina tala saaran layn tub qayr lana mari lahayn ogoobay tacaddigaan ilaahayna ma tuseen aamiin allow kaa aqbal wuxuu yidhi how tareesaadan tahalluukaada isku tacbaansha maataada tareesaadan tahalluukaada isku tacbaansha maataada waxaa la yidhi meelsaay uu taalaa loolaayaal waxaad raabtaysaa soo saameey naga tag shiribka ha nooga dheeline shanshadaadu heragga ha dhabatee war waxaa la yidhi cidda talada markaad fiirisaan loo cimaamadayo ciqaab inay amuurteennu tahay waa iska caddaan war gabay iyo shiribaad ku waalatiine ii imaada aydi daawaya ii imaada warnamiya war mahaytan ani warsiinhaye oo dhegansada aasamadii koonfur galbeed haytay baydhawo janayle eraayi bemeneedu may banagatay shan mundul meelkiyaalan haanganagati ma insababen biyaraasana qushtayer hooba dhidi taleefan iyo waldansinyin he isinba ogdiina baasidii taleefanadii ku wada jirta taleefan hooba dama nyaanya malgadadu kor usboodii alangadadu korne hilibkii malgadadu kor bukuraytii malgadadu kor goroortii malgadadu kor afow shib hindhow bererregak weerti may baydhawo janaayo wiina meelikiyaali isun ogdiin haddii shan mundul haang madonal taleefan jeli dameeyo madonal taleefan jeli daaraw dadmemuwa nimanyaw maday isaaqow taas hala yaabin ewalaa hore waxaa loo yidhi maalintiina intii ishaadu gaarta warran cawadiina intii gacantaadu gaarta warran war baydhabo waxaa telefoonada looga daminayo ayaantaan ciidamada etoobiya marna imaanaya marna ka baxaye maabay axmeda aqal iyo mudul looga dhisaya maxaa la qarinayaase anina maday isaaq kamaliita warsiin haaye war magaaladii dhuusa mareeb ahayd caasimad weyn bay noqoto shara qamri baa laga soo aruurshay may dheegi jiray walaagi ololayaal anrabka waxa dafe anana maday isaaq makaliida warsiin haay yaari war heedhe waxaan idiin sheegayaa kii islayina warnimayo anina warsiin haaye waxaan maqli jiray islaantii xaabada qaadi weysay mid kale ku darsatay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle wuxuu yiri Hirshabeelle waa dhul ballaaran gobollo kale aan ku soo daraynaa marka labadii gobol ee hore ammaankeedu sugi waayeen gobollada kale ay ku soo darayaan xagee amaankooda ka sugayaan socon weyn aan orodna biya aniguna warsiin haaye gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle wuxuu yiri ununkaya nabadya nolol isku waqtiyaana dhacayna ee ka hormari mayno gudoomiyaha wuxuu ka wadaa haddii nabadii nolol ay ku darsato annagana waa ku darsanayna warnimayaanu waa yaabay abwaan ambaasador awliyo iyo abwaan xildhibaan cabdishada jaamac ayaantan waa lagu wareeray ma nabadiyo nolol bay ka tirsan yihiin ma nabadiyo horumar bay ka tirsan yihiin mise himilay ka tirsan yihiin mise wadajir bay ka tirsan yihiin mise xoogaga wadaniyiinta war awliyo soo kiiri dawladdan samada laga soo dira war waa runtiis waxaan samada laga qadarin dhulka kama dhacaan war ma haysan madaxweynayaasha Kismaayo iskugu tagay geedo badan ay tiraaleen sixir siyaasadeed miya ala garooba arbay kala dagaalaman fadaayana warnimada waxa la yiri ilmaha inta yaryar yihiin beenta barta mustaqbalka siyaasiyiin ay noqdaan aryaadaha madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif waa soo laabteen Kismaayana dhiray ku abuureen la yiri xamar geedii lagu abuuri lahaayay ku halayhayaan ara abdullah aan hel wal mooshiidii nabad inoo alba gumbigi laamiga tiiska abuurtay arbeeda aami warmada isaaqo sheekadaada waxaan ku soo xasuustay sheekada koor Gaalkacyo ka dhacday laamiyada magaalada Gaalkacyo dhalinyarada xilqaanta waxay ku talaaleen geedo ayaan kadib wiil kale dhalinyaradii kamid ah inuu wuxuu arkay ri cunaysa geedihii markaasuu dhalinyaradii geedaha talaashay mid kamid ah telefoonku wacay wuxuu yiri wariya habeelow geedihii ni riba
cunaysa ee kaala ka dhacso haddaad rabtaan marka maday isaaqow geedihii nabad iyo nolol ribaa cunaysa miyaad noo keentay annaga alkacyadaasaan ku keenaya hadda ka horaa macallin kutaab heer gaalkacyooda quraan u dhigay haadaa beledul amiin macallinka yiri asoo yiri macallin jaj meeshaad ka tiraahdiin beled annagu magaalaanu nira ah war kuwaas labadooda kee wax la baray war ardagas waa ku halayahay hala ii keeno hadda ka gaarsiinaya hadda ditoore ardada macallimiinta daaweysa wareedha madaxweynuhu baa disababo dhir ku soo beeray maxaa madaxweynayaalka Kismaayo dhir ku soo beeran nooga sheegaysaan waryaa madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha hadda jooga bisaad sheegteen aaway madaxweynayaashii dambe Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo Sanatar Faroole iyo xildhibaan Cusable iyo war haddii ra'iisul wasaare khayr dhuusamareeb uu buloog ku ciyaaray xildhibaan fiqi Kismaayo buloog ku ciyaaray war ma haysaane taliyii hore nabad sugidda Sambaloolsho wuxuu yiri inta koonfur qasan tahay oo isdilayso oo dhiigooda ay baneysteen waa in Soomaaliland la aqoonsado oo dal madax bannaan loo aqoonsado caalamkana loo sheegaa in Soomaaliland ay Soomaaliya fasaxday warriyo horta taliya Sambaloolsho marka xilka laga qaado run badana xil dambaba laga daayay ninka runta kaliya noo sheegay war adeer haddaan Soomaaliland nahay Sambaloolsho uu noo casuumay uu Hargeysa weyn baaran ku marti qaadaynaa waxaanu aqoonsanaynaa Soomaaliyadan aan jaarka nahay madaxweynaheeda annaguna waxaan casuumaynaa madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo yiri aqoonsiga Soomaaliland raadinaysa dukaamada laguma gado war Soomaaliland iyo Sambaloolsho way waayeen alayka أنا داويني دكتور والله سنبلول جوالنينه runta la naabiya war fil Soomaaliya qof intuu ag joogo run ma sheegi karo war maanta war ma haysaana shirkadii Coca-Cola xaflad weyn ayay soo bandhigtay Soomaali badanna way isugu keentay oo madax iyo shacab leh war muxaafadii mucaarad ma isugu keentay Soomaali waa kala baxday war waxaan waa Soomaaliya shaqada naga dhageysta hadda waxa ka dhacday arko kadan ka beek kifax aniga korkeygaan ka kasaa hadan ka booda Coca-Cola korkeygaan ka kasaa hadan ka booda Coca-Cola war ma haysiine guddiga golaha shacabka u qaabilsan diyaarinta sharciga doorashooyinka maanta waxay u yeereen wasiirada gaashaandhigga iyo amniga waxayna weydiiyeen haddii dalka doorasho qof iyo cod aan ka qabanno ma damaana qaadi kartaan amniga muwaadiniinta wasiiradiina waa aqbaleen oo waxay dhaheen annagaa nugula ogyahay amniga dalka ilaahow idinka cafi amni haddaad sugaysiin horaad u sugi laheedeen abnigu ma ka aaraana bulud baruuf oo maka al-mukarram inaan barafar dhatiyo la kamaraw marba haddaan wixii hore lagu la xisaabtamayn waa gartood inay wax dambana dusha saartaan oo yiraahdeen amniga annaga damaanad qaadeen hadda ka hor wuxuu yiri falfal abkay faalan faada faayna fadu xirima falfal abkay faalan faada faayna fadu xirima wasiir islaamiga sidaas u shirbay waxaan su'aalayaa siyaasiga ku kalsoonaan la 4.5 qof iyo cod inuu ku soo baxo say ugu kalsoonaan war nin walba cidiisa u codeynayso warna waxa la yaabanahay doorashada xaliimiyar ay leedahay waa qabanaynaa qof iyo codka ah meesha lagu qabanayo war xaliima inta nabad iyo nolol joogto dadka waa maaweelinaysa war maxaad ka rabtaan guddiga codkiina baxsada haddaad heshaan meelaad ku codaysaan war xaliima meelay xisbiyadii ku qaabishay balaadahay sidee doorasho qof iyo cod u qabanaysaa war ina quraansho iyo aqli dawlada lama arkee naga shibda ambaro mahmaahya ma taqaanida dawladu ka gacan dheera la yiriye shib naga dhacdigu war adii islaantaas ku aydima ma ilaahay dawlad daladan deeri korneed deerasa daraarje may goradaw war waxa la yiri in kastoy dilaaba antoo doorar naga laysay duumadu qofkay hayso waa laga dabiiba mas'uuliyad daraan wali la helin daawo loo cuno war waad tahay warkaagana war muxaarad way madaxa ka jira tariimo iimaana ku daaweynay warna miyaa muhaafad iyo mu'aarad iyo wala nuroogna anta ka tiriyaasan ragafay in ay irka ka tilaabsaday madawiinagi waqooyiga kuuni Jom King yang galalala lanki leeray hordaan hubaad tijaabiye jiray geeka feresa tijaabi ma ilaahay irkii dhatun sad goorlaysaase waana kanaga anta fadhiyahay adiguna maday shaaqo goorsa waxaan loo fadhinaad sheegtay naga shibde dayib gadab ortikan wuxuu yiri duulaankan Suuriya ku qaaday Soomaaliya igu taageertay qadarna dhabarkay iga dharbaaxday cid kale warkeera rabana lama arko uu yiri annaguna duulaanka aan Kenya ku qaadi rabno hanugu taageera haddaan tol iyo qaraabana wariyaa Turkiga inaan tolnahay miyaad moogta war ma aysan madaxweynaha Tunisia markuu
doorashada ku guulaystay waaguu shaqalaanta ahaa maqaayuu shaarka cabi jiri ayuu hore ka aaday tunuusiya waa halka dale kacdoonkii carabta ka faa'iiday ma isu kaanna tagaan tunuusiya tolaan dhaha iyagaba aryaadhaha tunisiyaad ku jirtiine kacdoonkan macaawislayda ma la taageero soomaaliyeed waryaa kacdoonka ceelasha biyaha ka socda waa isbaaraa la yidhi ma waddadii la dhisaya lacag laga rabaa shabaabba haddii la siiyey balaayaa ku cayilaysaa maleeshiyaduna waa rabaan maa la siiyo anigu cid walboo isbaaro dhigata tillaab in laga qaadaan qabaa adigoo kuhan iibow